بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام والإيمان، الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له ظاهرا وباطنا، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، waxaan gudagelaynaa duruusteenii inoo socotay silsilatu alfawaa'id alyawmiya min alakhlaaqi waalaadaab alislaamiya. waa faa'iidooyinkii qiimaha badnaay ee yowmiga ahaa oon isleeyahay naftayda iyo muslimiintaba wax weyn bay ka tari doontaa noloshooda iyo dhaqankooda diineed. maanta waxaan kusoo qaadanaynaa 5 qodob oo faa'iidooyinka muhimka ah. qodobka koowaad waa ahmiyatu sidqi, runta iyo qiimaha ay u leedahay qofka muslimka noloshiisa. yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin. dadka iimaanka laga helay oo ilaahay ka cabsada. kadib buu ilaahay wuxuu leeyahay wa kunuu maca asaadiqiin, inta runta sheegi macooda ahaada. alimaam malik ibnu anas alasbuxi wuxuu leeyahay, imaamu daari lhijra ayaa wuxuu leeyahay: qalamaa kana arajulu saadiqan laa yakdibu ilaa muttica bicaqlihi. wuxuu leeyahay alimaamu malik, waxaa yaraan badan qofka inuu noqdo mid runlow ah, marnaba aanan been sheegin, ilaa haddii arrinkaa uu ku sifoobo runtaas oo si joogto ah dhaqankiisa iyo sifaadkiisa ay oga mid noqoto. wuxuu leeyahay muttica bicaqlihi, ilaahay wuxuu ugu beddelaa qofka inuusan caqligiisa marnaba doorsoomin, xataa hadduu da' kastaa gaaro, inay cimrigiisii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigii dheeraay uu siiye inuusan marna kharaf iyo isku dardarsan inuusan ku dhicino caqligiisa u baaqi ahaado. waxa uu leeyahay sidoo kale: walam yusibhu maa yusiibu gayrahu min alharami waalkharafi. dadka odayaasha iyo duqayda ah waxa lagu yaqaano isku dardarsanka, cantatabka kuma dhaca qofkaas mar hadduu yahay nin runlow ah oo runta ku dadaala. marka sifadaas waa sifa jaliilah, waxay ka mid tahay asbaabta nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ku tilmaamay in ay kheerka dhammaantiisa soo aruurinayso: calaykum bisidqi faina asidqa yahdi ila albiri wa ina albira yahdi ila aljanna. laazima wuu leeyahay nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi, runta laazima. runta waxay soo uruurisaa kheerka oo dhan bay hooye u tahay. kheerka iyo birigaana iyo samafalkaana qofka wuxuu ku hanuuniyaa jannada ilaahay, ilaa qofka looga qoro ilaahay agtiisa run badani. marka faa'iidadaas waa faa'iide jaliila, aniyo adiga baan u baahannahay, akhi lmuslim wa ukhta almuslima. faa'iidada labaad waxaa nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka sugan xadiiskii uu soo saaray alimaam atabrani fi lmucjam alkabiir min xadiidi xakam ibni cumayr bisanadin saxiixin, ayaa nabigu wuxuu leeyahay: man ataa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu. qofkii wanaag idiin gala uga abaalguda wanaaggaasuu idiin galay. fain lam tajiduu maa tukaafi'uuhu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuhu. xataa haddaad waysaan qofkaas waxaad ugu abaalguddaan, u duceeya buu leeyay nabiga sala allahu calayhi wasalam, ilaad ka aragtaan inaad u abaalguddeen. ayib, waxay leeyihin haddaba culummada: ina radda aljamiili min asifaati alxamiida. qofka inuu wanaag marka loo galo wanaag kale ugu bedelo qofka wanaagga u galay waxay ka mid tahay sifaadka qiimaha badan allatii xaha calayha addiinu alislaami. waa sifaadka qiimaha badan oo diinta islaamka dadka ay ku boorisay. maxaa lagu yaqaanaa marka? faasadiiqu almu'min alladii yakhshaa rabbahu wayakhaafah yaruddu aljamiil waalfadla liahlihi walaa yansaahu mahma kaanat alduruuf waalawqaat. qofka qiimaha badan ee wanaagga badan ee runlowga ah, ilaahayna ka cabsada, waa qofka wanaagga dadka iyo abaal wanaagsan u celiya marka wanaag loo gala. arrintaana waa arrin qiimo badan oo xadiiskan ugu boorinayo. maanta arrinta ummadda muslimiinta dhammaan meel kastoo joogaan ay ku walaaloobi karaan waa qof walba inuu qodobkaas oo kale uu ka soo baxo, uu qaato inuu wanaagga walaalihiisa ay u galeen mar walba abaal iyo duca iyo allabari iyo markaas soo dhoweyn iyo tahniyad iyo hambalyo uu mar walba ugu bedela. qodobkeenna saddexaad wuxuu ku saabsan yahay arrin laga yaabo muslimiinta in badan inay
laga yaaba aan la halmaam ama ghaflo looga sugan yahay ama halmaam. ninka taabiciga qiimaha badan qataada ibnu dacaama asaduusi ayaa wuxuu leeyahay sida ibnuljawsi uu kusoo uroriyey kitaabkiisa sifatu safwa ayaa wuxuu leeyahay qataada man ucطiya maalan aw jamaalan aw hiyaaban aw cilman huma lam yatawaadac kana calayhi wabaalan yowma alqiyaama. qofki ilaahay subxaanahu watacaala nicma siiyo, ilaahay wuxuu ku siiye xoolo, wuxuu ku siiye caruur, wuxuu ku siiye qurux, wuxuu ku siiye sica oo ilaahay subxaanahu watacaala uu marka baahidaada daboolay, dharka waxaa doontood ka xiran, cilmi iyo aqoon iyo garaad buu ilaahay ku siiye, arrintii idaheedna maadan garanin, ilaahayna subxaanahu watacaala ugamaadan mahad celinin, tawaaduc iyo kibir la-aanna dhaqankaada muusan noqonin shay laga helo oo saameeya ilaa haddii sidaas samayni wayso tawaaduc iyo shukri iyo mahadnaq ilaahay aad u celinayso. haddii lagaa waayo nicmo kasta ood heshay waxay isu bedeli doontaa maalinta qiyaama khasaara iyo nadaamo iyo shalayto iyo qomamo. marka nicmooyinka ilaahay noo galay oo tirada badan waxay u baahan yihin ayagana arrinka inaan dareenno, ilaahayna oga mahad celinno daa'iman wa abada. qodobkeena afraad, alimaam wuxuu leeyahay ninka taabiciyiinta qiimaha badnaa ka mid ahaa malik ibnu dinaar ayaa wuxuu leeyahay kaana alabraaru yatawaasawna bihalaahin. dadkii qiimaha badnaay ee hore waxay isu dardaarmi jireen 3 arrimood. 3da arrimood maxay tahay? kow, bisijni lisaani, carabkaada inaad xabsi geliso ood xumaanta ka hor istaagto. waa dardaaran qiimo badan, waayo nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka la weydiiye naarta waxa lagu galo alfamu walfarju uyuu yidhaahdee waa afka iyo xibinka taranka ah. saa darteeda carabka wax xabsi la geliyo ooga muhiimsanna ama kaga owleysan in xabsi la geliyona ma laha carabka. qodobka labaad waa kathratu listikfaar, dembi dhaaf badan oo ilaahay weydiisani jireen. qodobka saddexaadna waa alcusla, inay dadka aad ka fogaato, waayo sharkooda iyo dhibkooda iyo xumaantooda badan. marka carabkaadana xabsi geli oo xumaanta iyo dhibka iyo sharka inuusan kuu soo jiidin ka hor istaag, dembi dhaaf badanna ilaahay weydiiso, dadkana cidda aad kheyr ka faa'iidi mooyaane inta kaleo dhanna ka duruq. qodobkeena shanaad oo ugu dambeeya waa qodob isagana qiimo badan. waxaan u dardaarmayaa naftayda iyo walaalahayga muslimiintaba al-ikthaar min qawli laa xawla walaa quwata ila billah. ereyga inaan badino, laa xawla xeelad ma lihin aan xumaanta kaga wareegana, walaa quwata awoodan daacaadka iyo cibaadaadka kula imaano ma lihin ilaa billaahi, ilaahay kaalmadiisa iyo macuunadiisa inaan helno mooyaane. waxay leeyihiin culimmada falow yaclamu saaxib alxaaja maa fi hadihi alkalima min alcawni waltawfiiqi walsidaadi. qofka dhibaataysan hadduu ogaani lahaa kelimadan waxay xambaarsan tahay oo kaalmada xag ilaahay uu ka helayo qofka badiyo, tawfiiqda iyo toosnaanta iyo hidaayada xag ilaahay laga siinaayo, toosnaanta iyo qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala higitaanka uu ku hegayo kheyrka iyo waddada wanaagsan hadduu ogaani lahaa qofka maa jafa lisaanuhu minha, carabkiisa marnaba muusan ka qalaleenba, kelimada unbuu wadi lahaa habeen iyo maalin. waxay leeyihiin culimmada ugu dambeyn fa inahaa raaficatun naaficatun daaficatun jaabiratun wa kanzun min kunuusi iljanna. kelimadaas qofka ayay sara u qaadaa ilaahay agtiisa. kelimadaas waa kelimo nafci badan, kheyr badan. kelimadaas waa difaac kaa ilaalinayo xumaanta iyo dhibaatooyinka iyo aafaadka. kelimadaas waa kelima wax kasta oo kaa maqan kuu buuxinayso, kuu kabayso. ugu dambeynna waa keedadkii jannada ka mid a si nabigeenna uu tilmaamay, waa albaabaha jannada si nabigeenna uu tilmaamay axaadiis saxiixa. marka kelimadaasna qof kasta oo dhibaysan ha ku dadaalo, qof kasta oo nicmaysan ha ku dadaalo. qofka muslimka daydanadiisa iyo hadalkiisa joogtada ah inuu ka dhigo kelimadaas maxaa ka qiimo badan, si wanaag iyo markaa nicmo badan iyo barwaaqaba uu ilaahay subxaanahu watacaala ugu abaalmariyo. hada wabillahi tawfiiq. waa dersigeena caawa 3aad ilaan ku kulmi doono dersiga 4aad silsilatu alfawaa'id. waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illaahi. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.